Asalaamu calaykum akhyaarey soo dhawaada mar kale waa cashirkii labaad engineering mechanics statics chapterkan waa chapterkii labaad waana examplekii koowaad cashirkii horeeyey waxaanoo iska introduction ah kasoo tataaban engineering mechanics statics taasoo runtii maxay ahayd muhiim ah oo ina aragtay waxyaro iska overview ah aan soo sameynay inaad soo daawatidna waan kugula talinayaa okay exampleka marka haddii aan fiirino wax yar examplekan waxaa la ii sheegay maxay ahayd this object inuu ku dhegan yahay laba force oo ah f1 is equal f2 sidaas daraaddeedna laga rabo inaan soo saaro magnitude-ka is equal direction-ka magnitude-ka micnaha size-ka labadan vector marka la isku daro magnitude-kooda ama size-kooda laga rabaa sidoo kale waxaa laga rabaa direction ahaan meesha uu dhici doonana waa laga rabaa sidoo kale inaan sheego caddeeyo sooma vector-ka waa labadan marka la isku daro sheyga ma aragto u dhigmi doono ama vector-ka u dhigmi doono labadooda marka la isku daro ayaa marka maxaan leenahay resultants sooma okay ka hor marka inta aan wax kala gelin waxaa sameynaya graphical solution ayaa sameynaya waxaa leenahay wareen wax sameynaya halkan oo kale hadda na vertical axis igu samee qaabkaas oo kale kanna sidoo kale in x sooma okay markaan halkaan marayna marka forceska markaan muujiyo forceska macnaha si graphic ah dhammaan waxyaabaha aan ugu baahanahay dhan ayaan sameynayaa kanna waa forcegii sooma forcegaas oo kale 15 degree ayuu u jiraa dhinaca x sidoo kale halkaan ka qabo kanna waxaa leenahay waa force f2 ayaan sidoo kale asagana kan leenahay marka okay sooma this is force f1 kanna waa force f1 kanna waa f2 kan marka cabirkiisu muxuu u jiraa 15 degree la ii sheegay kanna sidoo kale wuxuu u jiraa 10 sooma okay 10 marka uu jiro kan mid walba marka waxaa sameynayaa parallelogram si aan soo analyze gareeyo problemkayga waa inaan ku dabaqaa parallelogram law ama law of addition marka mid walba marka force walba marka midka isaga yacni la mid ah ayaan halkan ku darowgareynay kan cagsigiisa intaa dhigi doonaa kanna sidoo kale cagsigiisa intaa dhigi doonaa si aan u helo diagramka parallelogram si aan u helo okay good this force marka oo f2 ah ay kana marka wuxuu noqonayaa marka qaabkan okay qaabkan oo kale ayuu noqonayaa marka kanna sidoo kale wuxuu ahaa f1 isagan ku xir caadi sooma okay kan wuxuu ahaa f1 kan wuxuu ahaa f2 sooma kan iyo kan waa isla mid kan iyo kan sidoo kale waa isla mid sidoo kale waxa marka bartamaha dhici doona diagonalka noqon doona marka wuxuu noqon doonaa waa resultants sooma kan marka wuxuu noqon doonaa waxaa loo yaqaanaa waa resultants hadda marka waxaa ismaysme laba triangle laakiin si guud maxaa haystaa parallelogram sooma okay hadda kan marka maxaa loo yaqaanaa kan waxaa loo yaqaanaa dhahne waxaa loo yaqaanaa waa resultant ama r u soo qaado okay angalkan u dhaxeeya labada force inta kasoo bilaabo ilaa inta lama yaqaano laakiin waxaan naqaana annaga forcegan f1 angalku u jirsaday dhinaca x sidoo kale f2na angalku u jirsaday dhinaca vertical ama dhinaca y sooma okay labadood marka x iyo y waxaan naqaynay inay isku hayaan 90 degree haddii laga jaro marka 25 oo degree ah waxaa ii soo baxaysa 65 laana 15 iyo 10 labadooda marka wixii ka dhaxeeya marka toos ayaan usoo heli karnaa marka waa 65 degree soo marka inta marka haddii aan alfa u bixiyo alfa marka maanta waxay ila mid tahay waa 65 okay parallelogram marka la joogo marka labadii dhinac iska soo horjeedaba ama labadii angle iska soo horjeeda waa isku mid hadda marka angalkan hadda alfa dhaho kanna sidoo kale isagana muxuu noqonayaa dabcan already wuxuu noqonayaa alfa okay kanna haddii aan beta u bixiyo kale ka soo qaado kanna already marka wuxuu noqonayaa beta sooma okay hadda marka alfa waa qaana waa 65 intana sidoo kale muxuu noqonaysaa 65 si aan u helo beta marka waxaa leeyahay marka waxaa haystaa halkan oo kale kan iyo kan iyo kan iyo kan marka la isku daro waa 360 dabcan okay
2 alpha iyo 2 beta ayaa waxay la mid tahay 360. Okay, waxaan leenahay marka waa 2 alpha 2 alpha plus. Okay, waxaan leenahay 2 alpha plus sama 2 beta is equal waa 360 ay la mid tahay intaas. Good. 2 alpha marka alpha qiimaheeda waa qaana sooma waa 65 plus 2 beta sooma. Okay, is equal waa 360. kan iyo kan haddii isku dhufto 130 plus 2 beta equal 360. markii halkaas maraysa marka kan isoo wareeji marka 2 beta 2 beta da equal waxaa leenahay 360 laga jaray 130 sooma 130. haddii intaan ka jara marka 130 haddii aan ka jaro loo qaybiyey labo halkaana sidoo kale labo igu qaybi. Finally beta maxaa heli karaa 115 degree ayaa markaas heli karaa. This marka answerka loogu baxayo. In beta maxaa soo helay 115 intana sidoo kale 115 markaas ay noqonaysaa. Okay, mar kale marka haddii yani graafkan kale aan muujiyo ilaan natiijadeeda iyo wax aan soo helay waxaasaan ku muujinaya si waxa laga rabo oo si clear ah markaas faahfaahsan oo waadixa uu fahmo. Okay, waxaa soo qaadanaya marka mar kale waxa ii samaysaa graaf. mar kale waxaa samaysanaya graaf ayaan samaysanaya halkaas oo kale iigu sameeyo sidoo kale intana kanna qaabkaas oo kale markaa iigu sameeyo. Okay, force-gaan marka hadda marka intuu dhacaya isaga this force waa kaas halkaas oo kale waa di force F1 okay qaabkaas oo kale ayuu noqday. Okay, sidoo kale F2 na waa kana sooma F2 kadib marka waxa isku xiraya F1 iyo sidoo kale F2 ayaa markuu wuxuu noo noqon doonaa waa resultantiga marka annaga u baahannahay sooma resultantiga anaga u baahanaa markaas noo noqon doonaa oo micnaheeda ah kan marka waxaa la ii sheegay inuu noqon doono R sooma angalkaana waa la ii sheegay waa 115 la ii sheegay inuu noqdo dabcan oo ii soo baxay halkaas iiga soo baxday. Okay, sidekan waxaa loo yaqaanaa dhahay F1 sidoo kale sidekan waxaa loo yaqaanaa F2 laana kan ayuu parallel la ahaa sooma kanna sidoo kale kan ayuu parallel yahay kan marka waa F1 angalka marka wuxuu u jiray 15 sidaa darteed betana waa soo saaray waa 115 waan. Okay, hadda marka maxaa soo heli karaa dabcan labada dhinac waa aqaana sooma F1 hadda magnitude-ka F1 maxaa haystaa aniga F1 marka la joogo magnitude-keeda 100 newton sooma sidoo kale F2 magnitude-keeda maxaa haystaa 150 newton. Good. hadda marka ma soo heli karaa yani dhinacan waa haystaa waa 100 newton sidoo kale dhinacan waa haystaa waa 150 R iyada laga rabaa angalkeedna waa hayaa laakiin ogow angalkeed marka waxa laga rabaa waxay tahay marka angalkan waa laga rabaa sooma. Okay, sidee ku soo helaya marka waxaan leenahay R square is equal F1 square F1 square plus F2 minus 2 F1 minus 2 F1 F2 2 F1 F2 cos theta R sooma kulli marka waa haystaa marka wax walba sooma. Okay, haddii marka magnitude-ka R equal marka waxaan leenahay F1 igu soo bedel dabcan waxaa haysana 100 sooma sidoo kale plus dhe waxaana halkan waa F2 150 minus 2 F1 waa 100 F2 na waa 150 sooma cos beta qiimaheeda ayaa marka anaga marka theta R noo noqonaysa sooma waxaa leenahay 115 degree iyo soo xir intaas. Okay, haddii markaan intaa marka radical saaro soo saar halkaas kale kan wuxuu ahaa square kanna sidoo kale square u ahaa. Good. kanna sidoo kale radical ka saar kadib marka magnitude-ka R waxa ii soo baxaya 213 newton marka answerka laga rabo ama magnitude-kiisa waa kaa marka qaabkan ku soo saar. Okay, intaas marka la joogo halkan marka soo saaray R hadda marka waxay ila mid tahay waa 213
newton soo ma newton inta soo saaray haddii aan soo saaray marka angalkan ma heli karaa wax haddana laga rabo angalkan waa sidaas daraaddeed marka hore waxaa kusoo apply gareeyey cosine law laakiin hadda waxaan ku apply gareynayaa sine law kusoo apply gareynaya leanna waxaan naqaanaa sine law macnaa dhinacan marka loo qeybiyo angalkiisa inuu la mid yahay dhinacan loo qeybiyo angalkiisa sidoo kalena dhinacan loo qeybiyo angalkiisa sidaas daraaddeed marka aniga waxaan haystaa r dhinaceedna waa haystaa dhinacanna waa haystaa angalkeedna waa hayaa laakiin kuwa kale angaladooda iga maqan marka mid ka mid ah marka soo raadinaya marka sidaas daraaddeed marka waxaan leeyahay f2 oo kale loo qeybiyo angalkeeda f2 oo dhinaca loo qeybiyo sin theta equal r loo qeybiyo sin theta r sin theta r okay igu soo bedel marka mid walba f2 marka aniga maxaa heli karaa 150 loo qeybiyo sin theta ma haystaa maya iyada waa middle row in markaas la soo raadiyo okay r ma haystaa yes r waa haysana waa 213 loo qeybiyo theta r yes waa haynaa waa 115 degree ah sidaas daraaddeed cross iskugu dhufo then theta answerka la helaya marka wuxuu noqonayaa 39.8 okay hadda marka maxaa soo saaray intaan waa soo saaray maxay noqotay waa 39.8 okay marka la joogo marka x axis-ka marka la joogo resultantigaada muxuu u jiri doonaa waxaan naqaynay halkaa inay ahayd 15 sidaas daraaddeed marka waxaan leenahay 39.8 plus 15 equal marka waxay noqonaysaa 54.8 this is marka the total answerka aniga markaas laga baahnaa ma fahamtay example ka inoo badan marka insha Allah. Assalamu alaykum.